waxay burburiyeen aqalkii Abu Bakar si ay halka Hilton uga hirgeliyaan aqalkii Khadijana waxay u bedeleen suuliyo loo xaajo tago sidii Makka dhulkii barakaysnaa ay isugu bedeshay Las Vegas xajku waxa islaamku u aqoonsan yahay mid kamid ah shanta tiir ee uu barkan yahay oo waliba waajibka ah qofkii awoodi kara waayadii hore xajka waa loo dhamaa walow aysan dadka oo dhami awoodi karin ka hor waxyar kontameeyadii qarnigii tagay tiradii dadka xajka dibadda uga iman jiray inay waajibka gutaan waa adkayd inay 100,000 kor u dhaafaan halka maanta duniyadan casriga ah iyo isgaarsiinta caalamiga ah ay sabab u noqdeen iyadoo goobaha barakaysan ee lagu cibaadaysto si weyn loo ballaadhiyay Makka waxa ay qaadaa maanta 3 milyan oo qof tiradii oo bata waxay ka dhigan tahay ajarka oo bata halka dhanka kale ee faa'iidada dhaqaale ee laga helay ay tahay kaalay darso xilliyadii hore dadku waa ay u sinaayeen lebiska cuntada iyo dhibaatada safarka loo mariyo guudashada waajibka halka maanta xaj 5 star hijiro inaad dhibaatota waa laga tagay siday noqotaba kol walba waa lagu adeegayaa xataa kolka lagu daro inaad u degto salaada jamaacada aftiyar oo caata ayaa diyaar ku ah tan ku banaynaysa inaad ku tukato qolkaaga salaada jamaacada haddii aad mas'uul sar tahayna kaba wanaagsan oo adiga iyo inta kula socotaba waxaad xajinaysaan iyadoo ilaalo xoogani hareeraha idinkaga jidho taasi dhib ma balaha mas'uuliyiintu ilaalada waaba ay mudan yihiin halka badarnoolayaashu ay tahay inay hantidooda ku raaxaystaan dhibaatada weynse waxay imanaysaa kolka Makka aysan maanta u muuqan tii ay awoowayaashan yaqaaneen 95% raadkii magaalada barakaysan Makka waa la ibarrogay 30 sano ugu dambeeyay aqalkii hooyo Khadija waa la dumiyay oo waxa laga dulisay 1400 oo musqulood oo ay dadweynuhu xaaja tagaan halka aqalkii Abu Bakar laga dulisay mid kamid ah hoteelada ugu qaalisan dunida Hilton qalcadii ajaade taariikhiga ahayd ay waliba UNESCO u aqoonsatay meelaha ugu mudan xagga qadarinta iyo qiimaynta dunidan dhulka lala simay aqalkii uu ku dhashay Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo dujisa Allah yeelay waxa loo bedelay suuq ay socotadu ka adeegato halka kolkii dambe loo rogay wax maktabad lagu sheegay waxa ayadna cardaadiqaha laga dhigay inta badan tiirarkii taariikhiga ah ee gudaha xaramka Makkada maanta waxaan si nabad looga aqoon Las Vegas kolka adeegta dhismayaasha waaweyn ee halka laga taagay iyo heerka maciishada ee cirka lagu tulay habeen kaliya oo dhinac dhigto hoteelka saacada ee sida dhow u kulala Kacbada waxaad u baahan tahay $5,000 Mareykanka watan usan xagga laabta hogaanka Sacuudigu waxay leeyihiin isbeddelka imika ee Makka ujeedada laga leeyahay waa oo kaliya in Makka loo rogo magaalo casri ah halka aad intiina badan isweydiinaysaan su'aal loo qaateena xiriirka ka dhaxayn kara casriyeynta iyo burburinta raadkii sababtooda loo asteeyay imika inuu idin tusmayno arrin muhiim ah laga yaabay inay halis tahay darciya waxay xarun u ahayd dawladdii reer Sacuudi koowaad tii lagu kala tagay sanadkii 1818 tii ay digada ka dhigeen ciidankii Cismaaniyiinta maanta waxay dawladoodu ku joogtaa dib u qaabaynta raadkii toodii hore ee darciya gaar ahaan kuwii sida goonida u quseeyay ragii dawladdii hore ee reer Sacuud halka xarumo raadreebka muujinaya goobaha laga hirgelin doono sida UNESCO qabta darciya boqortooyadu waa ay aqoonsan tahay halka Makka aan dan laga lahayn ka daro dibdal waxa taa iyada ifto diiniye ka soo saaray ragga diinta ee Sacuudiga burburinta qayb kamid ah raadka iyagoo abbaar ku sheegay tan UNESCO aqoonsan tahay iyo digniin intii ay soo gaarsiisay maamulka iyo waliba caradii Turkiga ee kala dhaaftay intuba iskama aysan hortaagin Sacuudiga burburintii qalcadii ajiyaade taariikhiga ahayd tan iyo Cismaaniyiintii haddaba soo uma muuqato in boqortooyadu ay si dhow u ilaalinayaan dhismayaasha taariikhiga ee reer Sacuudka imika ka taliya halka tii intaba ka qaalisaneed ee muslimiinta u dhaxaysay iyo u bedelida qibladii kaliya ee u jahaysanayeen xidmo hoteelada oo kulligood ku salxiran reer galbeedka iyadoo in la xusaa ay tahay in Kacbadii qadisnayd ay imika ku ambatay dhismayaasha cirka lagu tulay mahma hora tiri dadka reer Makka ayaa garanaya qaab oo lagankeeda imika waxay taagan tahay iyaga xagga garashada ugu dhow haddii ay tilmaamahaasi yihiinba imika wali kuwa sii jira